بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشرانتيني aynu ku baranaynay Excel accounting casharkan waa casharkii ugu horeeyay waana casharka asaaska u ah waana hordhaci u horeeyay Excel accounting marka lagu sameynayo Excel programkii Microsoft Excel 2019 baan isticmaalayaa haddii isticmaalaysid 2007 ama isticmaalaysid 2010 ama isticmaalaysid kuyaabihii ka dambeeyay waad ila socon kartaa ilaa weli Excel accounting waxa loo qaybinayaa laba qaybood horta ugu muhiimsan oo ka shaqeeya qayb waxa la yiraahdaa calculations waa in wax xisaabaadka lagu xisaabiyo qaybna waxa la yiraahdaa data analysis in wax lagu analysis gareeyo yani xog lagu baaro labada qaybood baan isticmaali doonaa inta hordhaca inagoo xoog saari doona qaybaha calculation iyo xisaabaadka marka doonaysid in tusaale meherad xisaabisid cost-keeda wixii income iyo wixii net expenses wixii ka baxay iyo wixii net amount aad hadda haysid iyo dhammaan kharashaadka kala duwan ee expenses ku baxa meheradaha waxa lagu xisaabin karaa Microsoft Excel waxa jira programmo kale oo lagu xisaabiyo sida QuickBook iyo Tally laakiin Microsoft Excel isagu waxa uu ka balaaran yahay kuwaasi maadaama kuwaas marka reportyada la diyaarinayo ay laftigooda u baahan yihiin in lagu sameeyo maxaa la dhahay programka Microsoft Excel haddaad doonaysid inaad data ku sameysid inaad analysis gareysid waa inaad la timaadid Microsoft Excel marka Excelku waxa weeyaan waa powerful software marka loogu talagalay in lagu xisaabiyo meheradahaasi ama data analysis lagu sameeyo ila SPSS marka loo sameynayo waxa la yimaadaa xogtiisa marka la analysis gareynayo waxa la leeyahay Microsoft Excel okay marka table-kan ayaad table-ladan ama shaxanadan diyaarsanay ayaynu tusaale ku sameyn doonaa waxaynu ka bilaabi doonaa qaacidooyinka sambaynu ka bilaabi doonaa insha Allah casharka soo socda laakiin casharkan waxaynu ku baran doonaa bal maxaa calculation waa maxay tusaale kale analysis waa maxay halkan waxaan rabtaa calculation imka waxaan sameynaynaa waxa column-kan waa description oo waxa la qeexay alaabahan aan hayno tusaale waxaan haynaa HP laser jet baan haynaa printer kaasaan haynaa external hard disk baan haynaa headphone blue headphone kaasna waan haynaa waxaan kale haynaa computer HP oo laptop HP ah oo noocan loo yaqaan buff la yiraahdo Buffalo waan haynaa marka qiimahoodana wax weeyaan laser jet kaas waxa weeye $50 external hard disk-gana waxa weeye $40 earphones-kana waxa weeye waa $25 computer-kan laptop-kan haynana waa $250 weey marka xaggana waxa weeyaan quantity hadad maqashid quantity yani waxa weeyaan waa tirada numberka haystid numberka yani aad iibsanaysid numberka iibisay 5 computer laser jet baan iibinay tusaale waxaan iibinay external hard disk 2 xabban iibinay headphones-kana waxaan iibinay 2 xabban iibinay computer-adan 4 xabban iibinay marka qiimahooda marka intaas soo xabay isu geeyno imika 5 xabadood oo hard printer-lada iyo external hard disk 2 xabbo iyo headphone-ada aan 6 xabbo iibinay iyo computer-ada 4 xabbo iibinay qiimaha markaasi maxay noqonayaan qiimahooda mid kastaba qiimihiisa muxuu noqonayaa marka total ahaan qiimahooda la soo dogeeyay maxay noqonayaan balkaas aynu xisaabin doonaa markaasi marka horeysa ayaan gelin doonaa formula ayaan gashin doonaa kadibna kuwan kalena ku tabaqi doonaa marmarna waxaa jirta mid loo xisaabiyo laakiin uma baahnid mid u xisaabisid waxaad u baahan tahay hal xabba inaad xisaabisid dhammaantood deedna aad mar wada xisaabisid marka doonayna inaan xisaabino waxaan taabanaynaa calaamad equal baan taabanaynaa equal markaan taabano marka waxaan gelinaynaa cost price-ka aan haysano cost price-kan haysano waxa weeye waa kaas halkan waxaan tartaa C17 inuu yahay C17 yani waxa ka timid halkan waa C waa column-ka C 17 waxa weeye waa rowga 17aad buu yaala rowgaas iyo column xakan ku tagtaga waxa la column la yiraahdaa kuwa soo jiifana rowis baa la yiraahdaa waa rowyo marka waa jiiftaha joogtaha yani hadii aan af Soomaali ku sheego xagaasi column-kaas C waxa yaala rowgiisa 17aad waxa yaala printer-kaas yaala marka qaacidadu waxa weeyaan waa C17 ama C17 oo aad ku dhufatid calaamad aad ku dhufanaysaa waa maxay waa calaamada hadii computer-ka uu yahay yani labada dhinac uu kala qaybsan yahay waxaad arki doontaa xagga numberada meel plus iyo minus iyo calaamada saddexda xidigood leh okay yani waxaan ka wadaa computer-ka haduu sidoo kale keyboard-kiisa kala qaybsan yahay halka calaamada xidigta baad ku aragtaa hadii kale waxa kugu jirtaa numberka 8 bay kugu jirtaa numberka 8 baad taabanaysaa shift iyo 8 baad markaas la taabanaysaa numberka keyboard shift keyboard-kaaga anyway calaamadu waa taas calaamadu waa calaamada xidigta ama string-ka xarafka
streamka kadib waxaan taabanaysaa shift iyo 8 baad taabanaysaa amaba keyboardkaaga haddii xaggaa ku leeyahay dhinacaas ayaad ka taaban doontaa. okay kadibna waxaad taaban doontaa numberka dambe ayaad taaban doontaa kadibna enter ayaad siin doontaa kadibna qiimaha ayuu kuu samayn doonaa. iminka markaan 5 xabadood iibinay ee xabadiiba $50 tahay waa $250 kadibna waxaan taaban doonaa koonaha handalka yar baan iman doonaa. handalka yar markay imaado yacni hoos baan u jiidi doonaa kadib waxaa lagu dabaqi doonaa dhammaan inaan qalabkan intan lagu xisaabiyo. xaggan waxaad aragtaa inuu kala duwan yahay yani mid kastaba kan aan lagu xisaabiyo. haddii aad halkaa eegtid halkan formulada sare aad ka arki kartaa halkan formula bar baa la yidhahdaa. formula barta waxa weyn 20 oo lagu dhiftay waa c 20 oo lagu dhiftay d 20 yani halkan aan tooga ayaa 20 ah waana meesha c 20 ka iyo d 20 kaas la isku dhiftay kadibna qiimahaas ayaa ka soo baxay. waayahay xaggan waxaan doonayaa total ku xisaabiyo totalkan barta ku xisaabiyaan rabaa totalkoodu muxuu noqonayaa markaas total guud waxay isku noqotay in doonayna bartaasi lagu xisaabiyo. waayahay waxaan taabanaya markaas sum ayaan isticmaalayaa sum halkan waxaa jirta wax la auto sum haddana aqoonin yani hal mar inta saa la isku xisaabiyo kadibna ayaan enter siinaya marka qiimahooda meesha ayuu ku wada dhufanaya. haddii marka calaamadaha hashka saas noqoto ciladu waxa weeyaan columnka iyo spaceka ayaa ku yar size-ka wakaas markaas sax dii ku noqonaya. marka la isku celiyo waan ka noqonayaa haddii aad isticmaashid waayahay halkan waxaan isku sameynaya maxaan ku yiri out sum ku sameyn kartaa out sum haddaan ku sameyn karina waxaa adiga taaban kara sum kadib sum ayaa marka qortid inta taabanaysaa bracket baad soo gelin doontaa kaas ayaad soo dooran doontaa dadna labada calaamadood iskor saaran ayaad soo gelin doontaa kan u dambeeya ayaad dooran doontaa dadna qowskiisa soo xiri doontaa dabeetna enter ayaad siin doontaa. saas oo kale adiga ayaa gacantaada ugu gashan karaa qaacidada ama maxaa la yidhaha formuladaada ku dabaqaya formulooyinka excel. waayahay halkaas ayaan kaga soo baxnaa qaybta calculationka ee xisaabaadka. qaybtan waxaan ku sameyn doonaa iyadan analysis baan ku sameyn doonaa bal halkan waxaan ugu yaalo macmiil waxaana telefoonadooda baan ugu yaala magaalooyinka joogaan iyo qiimayaal wixii lagu leeyahay ama balance ku ah. okay hadda waxaan isticmaali doonaa maanta insha Allah qayb yar fudud oo ka mid ah sida wax looga analysis gareeyo inaan tusi doonaa. analysis kani wax markaa ka qayb qaadanaya inaan xogtani inaan soo saarno intaan qof qaabka loo qorayo iyo sida loo qoro dib ayaan ka arki doonaa casharaanta dambe laakiin hordhac ayaan doonayaa maxaa u qabtaa excel accounting maxaa lagu sameeyaa. waayahay waxaan imanayaa halkan imka haddaan imaado maxaa la yidhaha insert haddaan imaado kadib intaan meel kamid a doorto columnku doono ma qasab maaha inaad yani columnkan dooratid waxaa kaloo iska ilaalin doontaa halkan inaan qoraalo dhinacyada kaaga xigaan waayo dhinacan yana wax qoraal ka walin dhinacan yana wax qoraal ka walin qoraalkaagan yana qoraalina deegaan iyo wadaagin ama yani cidna jaar ahaanin. markaad kadib waxaad dooran doontaa meel kamid a column kamid a columnyadaadan qasab maaha inaad joogtid dabadda inaad joogtid maaha laakiin waa inaad gudaha joogtid meesha doontidna ama magac joog ama xaraf joog meesha doontid joog column kamid a columnyadaadan ama cell kamid a salaalkan waa inaad joogtid kadib waa inaad insert timaadid halkaa dabeetna ay ku qoran tahay profit table waa inaad tagtid profit table markaad saa u dooratid tusaale saas kugu saari doonaa mid saas ayuu kugu saari doonaa sidaa marka uu kugu soo saaro yani meel kamid meeshan kugu soo saaro waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid new worksheet baa lagu saaraya. worksheet yani waxa waa daaqadan aad joogo mise daaqad kale ayaa lagugu saari doonaa mar raba waxaan odhan doonaa exit worksheet hore u jiray kadibna waxaan dooran doonaa halkan locationka halka la dhigayo kadibna waxaan doonaya inaan idhaahdo xaggan hoose dhig halka hoose markaan dhigo kadibna okay baan dooran doonaa sorry kaas ayaan taabtay kadibna insert baan dooran doonaa meel kamid meelaha shanta taabatid ayaad insert dooran doontaa kadib insert markaad dooratid deedna waxaad dooran doontaa worksheet jiray baan sameynayaa deedna halkaasi waxaan odhan doonaa dabeetna halkan yani waxaan kula new worksheet cusub iyo worksheet hore u jiray kadibna location kuma dooranaya kadibna waxaan odhanayaa okay imika wuxuu isoo saaray maxay halkan wuxuu igu saaray list buu isoo saaray liisaskan doonaya inaan habeeyo kadib waxaan doonaya inaan magaalooyinka joogaan inaan doorto halkan waxaa iisoo doortay magaalooyinkii ay joogaan magaalada qofku jooga ayaa iisoo baxaysa waa Burco Hargeysa Gaarisa Muqdisho saas oo kale ayuu saaray. xaggana waa maxay kan labaadna waxaan qaadayaa balance-ka lacagta lagu leeyahay ay noqonaysaa kadibna xaggan ayay iyaduna soo fuuli doontaa xaggan ayay soo fuuli doontaa xaggana waxaa soo fuulaysa city diba soo fuulaysa xaggana balance-kii iyo qiimeyaashii lagu lahaa ayaa soo fuuli doonta. سمارك tusaale mid kamid waan ka reebi doonaa burcaan ka reebi doonaa
gaarasana waan ka reebi doonaa, hargeysa iyo waxaan kasoo reebi doonaa intana qura. soo maaragtid waayahay mar kalean ku celinayaa. waxaan idhi maxay mid kamida baan dooranaya, kuwan column kamida dooranaya, kadibna insert baan dooranaya, kadibna waxaan ku qoray maxay saasaan ku dhufanayaa. kadib intaa markaan doorto waxaan dooranaya kan ayaan dooranaya, dabeetna waxaan dooranayaa in exiting worksheet cusub maaha, worksheet hore u jiray baan doonayaa. kadibna meeshaan doonaya inaan dhigaan dooranaya, kadibna saas ayay soo baxaysaa. sidaas markay soo baxdo xagga waxaan soo qaadanaya maxay allahuma mustacaan, waan soo dooranaya magaalooyinkaan soo qaadanaya, halkan ayaan soo gelinaya. waa taa magaalooyinkii halkan laga soo geliyay. waxaa kalean soo qaadanaya balanskana qeybta sorry cilad balka dhacday, waxa weeyaan ka saar, waa soo qaaday qaybta roog. okay waan soo geliyey. kadib waxaan soo qaadi doonaa balanskan xaggaas ayaan keeni doonaa. waayahay saas ayaan soo gelin doonaa. ogsoono ma soo gelin doontid qaybta filterka iyo qaybta columnka ma soo gelin doontid, waxaad soo gelin doontaa qaybtan rowga iyo qaybta valuega soo gelin doontaa. haddii aynu xaggan ku noqono magaalooyinkiina waa kuwan. haddaan doonayna magaalo kamid ka saaro magaalooyinka 39 magaalada Burco waan ka saari karnaa, kadibna okay baan oran karnaa. kadib Burco way ka baxday meesha, magaalada Burco way ka baxday. xaggan haddaynu ku socodno magaalada Burco waa taasi. okay xaggan oo kalena waxaa yaala balanski baa yaala. markaa balanski marka lasoo wada geeyo waa kaas, magaalooyinka wax ka maqan ma jiraan. okay way ku dhan yihiin. qiimahana waa maxay marka lasoo wada geeyo waa 1100 weeye. 1100kaas ayaana kaga maqan afartaasi magaalo. markaas sidaas ayaan ku helnay maxay analysiskeennii. maantaas waxaan baranay casharkaas labada cashar ee ku saabsan ama labada qaybood ku saabsan Excel accounting-ka waa data analysis-ka iyo calculation-ka. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.